waxaan rabaa inuu mahad celiyo dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadanayso halganka lagula jiro kooxaha khawaarijka diiday dawladnimada Soomaaliyeed in ummadda Soomaaliyeed ay noolaato harabna anika haddii ilaahay dadka waxa laga dhaadhiciyay shabaab waxay dadka ka dhaadhicayaan ciidamada isbuucay dalay joogi rabaan kadibna anika dib idigu soo noqonayn qof kasta waxaan u ballan qaadaynaa meeshaan tagno inaan dib uga noqonayn meel kasta aan tagno saaxadaan dib uga noqonaynaa ma jirto amaraan ku qabnaa madaxda ciidanka ugu sarreysa amaray nagu siiday qofka ugu dambeeya hadduu ku dhimanayn ka qof dib u noqonaa ma jirto waxaad ogtihiin meeshaan habeen horeeta waxay isku dayeen inay ciidanka ku soo weeraraan maydkood yaa weli yaallo waxa yaallo laba amiir oo kuwii shabaab ugu sarreey ah oo watay ciidanka shabaab labadii amiir oo ugu sarreysay maydkood meeshuu yaallaa inay soo doontaan waa awoodi waayeen waxaan samaynay inaan jaalis siino bal inay soo doontaan iyo in kaleeto 1 kiiloomitir inaan dib uga degno urkooda waa soo doona waa weli maydkoodu meeshuu yaallaa inay soo doontaan iyo in kaleeto inka anikoo fiirinayn waa soo doona waa weli maydkoodu meeshuu yaallaa iyo amiiraa waxaan rabaa gudoomiyaha hore degmada Buulaburte oo mahadsan tahay oo ka qabnaa xoolaha soo gaarsiiday horta waxaan soo gaarsiiday 10 neef oo ariya saar caday oo gabar reer Buulaburte iyaduna ah aad iyo aad markuu ugu horeysan labadii nabad ugu mahad celina iyo cid kasta iyo xildhibaan ka saacad kasta iyo Cabdi Fataax gudoomiyaha oo ka warqabnaa siyaasadii meelaha soo dhigatay markii dalka la horeeyay kadib siyaasadda noo aad. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.